murugadu waa dareen xanuun badan oo ku dhaca qalbiga kaasoo sababa niyad jab, caajis, isdhiibid, samir la'aan, ku fikiridda waxyaabo aan wanaagsanayn kuwaas oo ugu dambeyn nafteena soo istaajiya meel cidlo ah. haddii aad murugooto murugadaada ma xalinayso dhibka iyo culayska ku haysta, balse dhibaatadaada si kastoo ay u weyn tahay waxaa ka sii weyn allihii adigana ku abuuray dhibaatadana qadaray ee gacmahaaga kor u taag oo isaga u dhawaaq adigoo dhahaya annii massaniya durru wa anta arxamur raaximiin. rabbigeeyo dhib ayaa i taabtay, adiguna waxaa tahay inta naxariisata midka ugu naxariista badan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق وقاسم محمد داعد كسو دو جنالك هجاها نفطة. hamurugoon macnaheedu ma ahan ha dareemin wax murugo ah, balse waa maaree murugadaada si aad uga guulaysato murugada ugana badbaado saameynta ay ku yeelan karto nafsadaada. murugadu waa xaalad mugdi ah oo ay gasho nafteenna marmarka qaar, balse waxaa lagu kala duwan yahay sida loo maareeyo murugada. muuqaalkan ayaa waxaan kugu bari doonaa habka ugu wanaagsan oo aad uga guulaysan karto una maareyn karto murugadaada weliba si kooban. xasuusin muhiim ah: haddii aadan ka mid ahayn bahda ku tixan janalka hagaha nafta, waa tookadaadii si aad ugu soo biirto riix badhanka guduudan ee ay ku qoran tahay subscribe, kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaaladeenna. like saar muuqaalka si aad noogu muujiso dhiirigelintaada, u sheergaree asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan muuqaalkan. sidoo kale waxaad inoogu reebi kartaa fariintaada iyo taladaada qaybta hoose ee commentiga. dunidani ma jiraan dhibaatooyin lagu waarayo, culays iyo ciriiri kastana waxaa ka dambeeya fudayd. murugadu waxay waxyeelo u geysataa jirka qaybihiisa kala duwan, si gaar ah waxay mugdi u gelisaa habfikirka maskaxda, waxayna walwal iyo cabsi ku beertaa qalbiga. murugaduna waxay ku imaan kartaa sababo kala duwan: inaad weyso caafimaadkaagii, inaad ku fashilanto shay aad filanayso inuu ku dhammaan doono guul, inuu ku qiyaameeyo qof aad u aaminsanayd, shaqo la'aan inay kugu dhacdo, inaad weyso qof agtaada qiimo ku lahaa, inaad ku fashilanto nolosha. xaalad walbo aad ku sugan tahay, dhibaato walbo aad dareemayso, alla kuma mooga, ilaahaygu ku abuuray kuma ilowsana. murugooyinka qaar waa imtixaan, bal u fiirso qisadii nabiyullaahi ayuub calayhi salaam. ilaahay wuxuu siiyey xaas wanaagsan, 14 caruur ah, maal badan, waxaa u sii dheeraad inuu ahaa nebi ilaah. balse waxaa soo wajahday oo uu alle ku imtixaanay xaalad mar kaliya noloshiisa bedeshay. waxaana ka baaba'ay maalkii, caruurtii, shaqaalihii, beerihii. kaliya waxaa u soo haray xaaskiisii wanaagsanayd. isagana waxaa ku dhacay cudur jirkiisa googooyay oo xitaa gaarsiiyey xilli dadkoo dhan ka wada cararaan. muddo kadib, nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ayaa ku tiri xaaskiisii, maxaad alle uga baryi weysay inuu kaa qaado dhibaatadan? nebi ayuub wuxuu weydiiyey xaaskiisii isagana, imise sana ayaan ku nooleen nimco iyo barwaaqo, ma xasuusataa? waxay tiri, haa, waan xasuustaa, oo waxaan nimco iyo barwaaqo ku nooleen muddo 70 sano ah. markaas kadib wuxuu ku yiri xaaskiisii, mar haddii alle uuna siiyey 70 sano oo barwaaqo iyo nimco ah, annagana maxaa inoo diiday inaan u samirno 70 kale? nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waxay xaaladiisii ka sii dartaba waxay gaartay xaaladii ugu xumayd ee soo gaartay qof ibnu aadam ah. nebi ayuub xaaskiisii waxay ahayd qof dadaal badan, waxay isku dayday inay u soo qadaamayso oo ay u soo adeegto dadka dariska ah si ay uga soo hesho wax ay ku masruufto noloshooda. nabiyullaahi ayuub calayhi salaam xaaskiisii waxay dadaashaba shaqadii waa laga soo raacdeeyey
oo albaabadii oo dhan waa laga soo wada xirtay waxayna weyse qof garab siiya meel ay ka shaqayso cidna uma maqna ceelna uma qodna balse waxay ahayd qof dhiiran oo isma aysan dhiibin oo waxay ahayd qof ku kalsoon qadarta Allah ma aysan calaacalin balse waxay samaysay arrin mucjiso leh waxay gurtay timaheedii waxayna geysay suuqa si ay u iibiso lacagtaasna ay ugu masruufto nolosha ninkeedii kadib nabiyullaahi ayuub calayhi salaam xaaskiisii wuxuu weydiiyey meesha ay ka keentay cuntada mar haddii shaqada laga soo raacdeeyey xaaskiisiina way u sheegtay arrinta jirta iyo waxay samaysay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam kadib samada ayuu fiiriyey gacmaha ayuu sare u taagay wuxuuna yidhi ducadan annii massaniya adurru wa anta arxamu araaximiin ilaahow dhib ayaa itaabtay dhib ayaa rabbi oo itaabtay adigana waxaa tahay inta naxariisata midka ugu naxariista badan isla markiiba alla wuxuu u furay faraj oo alla wuxuu ka qaaday imtixaankii wuxuuna siiyey mar kale hanti fara badan caruur badan xitaa wuxuu ka dhigay dad dhalinyaro ah nabiyullaahi ayuub iyo xaaskiisii wuxuu ka dhigay dhalinyaro aad u qurux badan waxaana dib ugu soo laabatay caafimaadkii farxaddii iyo maalkii oo dhan nebi ayuub iyo xaaskiisii waxay ku sabraayeen dhibaatadii soo gaartay iyo imtixaankii uu alla ku imtixaanay muddo 18 sano ah adigu maanta waxaa laga yaabaa in aad la murugaysan tahay xiriir kaa go'ay qof kaa geeriyootay maal kaa baaba'ay xadgudub laguu geystay waxaadan ahayn oo lagaa dhigay si kastoo ay arrintu ahaataba alla agtiisa waxba kama ahan si kastoo arrintu ay kugu cuslaataba ilaahay xaggiisa waxba kama ahan kaliya adiga ayuu ilaahay ku imtixaanayaa haa adiga daawanaya muuqaalkan Allah ayaa ku imtixaanaya kaliya wuxuu doonayaa Allah inaad u soo laabato oo kor gacmaha u taagto oo aad tiraahdo ilaahayow dhib ayaa itaabtay adiguna waxaa tahay inta naxariisata midka ugu naxariista badan kuna duceysa ducooyinka murugada una baray suubanaheena Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam adigoo kaalmaysanaya samirka iyo salaada kuna duceysanaya ducooyinkii la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin حسبي الله ونعم الوكيل اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قبوجي قلبك إنيسان كواسيبين وحو الله كو تلقى مويه كو قبوجي قلبك وحد أذيك ربط إنيسان دعين لكن الله وحو دون إني دعيان كو قبوجي قلبك إنا تاهي أدون الله نأوكو امتحاني كروحو دونه ku qabooji qalbigaaga inuusan alla ku moogeyn uuna ogyahay waxa adiga danta ku ah ku qabooji qalbigaaga inuu alla kula jiro uusan kugu kalifeen waxaadan awood u lahayn ku qabooji qalbigaaga hadduu alla uu kaa qaatay qayb ka mid ah nimcooyinkiisii inuu haddana ku siiyay nimcooyin ka badan nimcooyinka uu kaa qaatay ugu dambeyn waxaan rajaynayaa inuu qalbigaaga ku dega muuqaalkan aadna ogaatay sababta aad la murugoonayso iyo inaysan murugadu u fiicnayn jirkaaga iyo noloshaada lagaagana baahan yahay xalkaasoo ah inaad la timaado salaad samir iyo duco oo kaliya kuna qanacdo qadarta Allahna inaad u tala saarato amuurahaaga adduun iyo aakhiro si ay kugu fududaadaan ka mid noqo bahda ku tixan janalka hagaha nafta si aad uga mid noqoto riix badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaaladeena like saar muuqaalka si aad noogu dhiirigeliso waxqabadka channelka una sii share garay asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iideystaan qaybta hoose ee commentigana noogu reeb fariintaada iyo taladaada hana ilaawin adigu waxaa tahay qof qalbi wanaagsan oo u qalma inuu ku noolaado farxad degenaansho jacayl iyo weliba nolol barwaaqo leh aad ayaad u mahadsan tahay